السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta oo taariikhdu tahay 10kii bishii saddexaad 2022 waxaan caawa halkan rabaa inaan shir saxaafadeed yar oo kooban aan ku qabto shir saxaafadeedkaas oo ku aadan runaantii barnaamijyadii ilaa iyo xalay socday runaantii markaan arkay xeerka madaxweynaha dawladda Puntland ee soo baxay 9kii bishii saddexaad 2022 ujeedadiisuna ay ahayd shaqo joojin lagu sameeyay gudoomiyaha degmada oo aniga haddaba anigoo fulinaya xeerka madaxweynaha dawladda Puntland ee shaqo joojinta ah isla markaana tixgelinaya wada shaqayntii wanaagsanayd aanu lahayn aniga iyo madaxweynaha dawladda Puntland muddadii 2 sano ee la soo dhaafay isla markaana tixgelinaya wada shaqayntii aanu lahayn aniga iyo shacabka ku dhaqan degmada Boosaaso 3 sano ee la soo dhaafay sidoo ayligeed anigoo tixgelinaya sidoo kale wada shaqayntii dhammaan mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda Puntland ee wasaaradaha ay hogaaminayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo qaybaha kale anigoo tixgelinaya wada shaqayntii aan lahayn laamaha ammaanka ee heer gobol iyo gudoonka gobolka sidaas daraadeed waxaan diyaar u ahay kuna kalsoonahay inaan aqbalo si waafiya awaamirtii ka soo baxday madaxweynaha dawladda Puntland iyadoo ay waajib tahay waxaan soo dhaweynayaa hanti dhowrka loo idmaday inay baaritaan ku sameeyaan magaalada Boosaaso maamulka iyo qaybta maamulka iyo maaliyadda anigoo halkaan raba inaan ku cadeeyo in hanti dhowrka dawladda Puntland ay noo yimaadeen bishii koowadeedii 2021 shaqadana ay ka baxeen sida halkan waraaqahan ku cad 25tii bishii labaad 2021 haddaba amarka madaxweynaha waa in mar labaad dib loogu celiyo ahna iyadana waa soo dhaweynayaa waana ku qanacsanahay inay mar labaad baaraan waxaan sidoo kale aqbalayaa natiijo walba oo halka ka soo baxda aan iyadana ku kalsoonahay maadaama aan ahay mas'uul khibrad badan leh 10kii sano ugu dambeeyayna u shaqeynayay maamulka dawladda Puntland qaybo kala duwan waxaan la soo shaqeeyay ama shaqada aan bilaabay xilligii uu madaxweynaha ka ahaa Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Faroole sidoo kale xilligii Cabdiwali Cali Gaasmaan iyadana jagooyin badan ka soo qabtay oo dalkan ka shaqeynayay waxaan kaloo nasiib u yeeshay inaan Dr. Saciid Cabdullaahi Dariir muddo 2 sano iyo dheeraad hadda aan la soo shaqeynayay oo aan xilkan gudoomiyaha degmada Boosaaso ah haddaba waxaan halkaan rabaa inaan ku soo gudbiyo anigoo kaashanaya khibradayda iyo aqoontayda dawladnimo inaan aqbalsanahay wax walba oo ka soo baxa baaristaas kuna qanacsanahay shaqadii hore loo baaray kuna kalsoonahay kuna qashadana ku kalsoonahay in mar labaad dib loogu noqdo haddaba waxaan rabaa inaan halkaan ku soo gudbiyo inaan iska casilay gabi ahaan jagooyinkii kala duwanaa oo aan ka hayay magaalada Boosaaso waxaan iska casilay inaan hore aan ahaa gudoomiyihii golaha deegaanka ee degmada Boosaaso sidoo kale waxaan iska casilay xilkii duqa degmada Boosaaso aan u hayay shacabka reer Boosaaso sidoo kale waxaan iska casilay xubinnimadii aan ka ahaa golaha deegaanka degmada Boosaaso waxaan halkan ku cadeeyo si inaan iska casilay dhammaan jagooyinkaas aan u hayay kuna qanacsanahay dekreetadii ama qoraalkii ka soo baxay madaxweynaha dawladda Puntland